halkan maanta aan joogno de waxaan kaga hadlayaa arrimo badan oo baryahan dhalinyartay oo ay daba fadhiyaan rag wasiire ah iyo rag odayaali ay ka hadlayeen oo maamulka jira ee degmada lagu cambaaraynayay inaan ka hadlayaan doonaya arrimahaas oo ah wasiir Shacayb dhalinyarta uu soo abaabulayo ee uu leeyahay ay leeyihiin Shacayb wuxuu dhisay 7 wado maxamed amiin waxba ma qaban faraha noocaasa ee xerta hadlaysay xertii Shacayb ahayd ee uu Shacayb magaalada joogay waxaan leeyahay Shacayb wasiirnimadaadii inta inay ka cuslaato way ahayd sida kale markan uga hadlana 3 bilyan oo laana ayuu dayn ka tagay Shacayb 3 bilyan ninka bixinaya ee lacagta wadooyinka lagu dhisay bixinaya marka loo nisbeeyo layla Shacaybna uu bixiyay kana lacagtiibu cunaa maayirka laftiisaan ku wargelinaya inuu joojiyo daymihii hore saa u muuqato marka horeba saa u muuqato wax qabadkiisa dawladda kulmiye malaay la isku hoos dhuunto ay jecesha wasiirnimada Shacaybna inay halkaas soo gasho way aniga igala aad bay igala naqsan tahay ninku gogashiisa hadduu dib ugu soo noqdo wasiirnimadiis wax liitay noqonaysa Shacayb dadka kale waxa leeyahay Shacayb meel lagu amaano kamuu tagin meel lagu jeclaystana ma joogayo maanta taasi waa taa rag waaweyn oo xildhibaanada lahayd waa la nahayb soocaya lahaa aniga daanun nin labada dhinacba ka dhashaana marka loo eego oogada iyo waqooyiga Gabiley أنا أبتيالذين أنت وسيرك عفمات كيف تجين بيكون هذين حقله توسيع عيسى كقاد إلا ولا يسدوه متعلم كذا يدي وان هني ولينا ما هذا المال تكور إن المال لقى قاده ولا نقول بسوي عيا وعيب بالله قرني مدين يقبلني مدين عيب كته حتى الحاجة كلاوديو إن كي عرض مركو ده شيء إلا ما أنت تابتي الذي بهيستوي ما يرني ماذا عرض كي إمك عرضي غيرك أنت هيستي هداي ما أنت إن كاسرنت كهيك قيليان وحن ليه هاي عد والباء إلهي هالكل دقائق يضع كتلنسا حتى يقلع يضعون وحين توبة يكون قرصة عدة إلهي هالكادق إني كتلسو عندنا كلام هذه كرتتا هديك هلا حما هو اللي يسكور سنشري قلع هو اللي يسكور سنشري قررني مدين إنه كدور بدين أبتيال وحلايه حيابها بدن كذا ينكر لقاد قاد حق بيرات توم بلانك لقى صار يدن تجود إمك بيرتها أنت شوقا وبيرتي الشيخ محمد ورسم الشيخ محمد يرى أفرتني بعد حليسة بيرتها يدي مقطع توم بلانك لقى صارية دن تجود باللقى صارية الشيخ عبد الله حدي عدي يحكي أنا مشت أباهي رفيقة يقول أبوها عد شيخ ماجي عيسى سخل دان وواحد ليسا وخلط شوف محمد ورسمان مديديو دان تقود واي بانك هالك لقى ديسي شيخ محمد ورسمان البحيون لقى ربا سليك يساقا لقى ربا كوري يوغو هرية بانك ما يركو دقلان شري عمر شيخ محمد با لقى ربا يساقا نبحيي dadkii kale magaalada la deganaa cid bixisay ma jirin inay hawsay doonto bahaato waxa weey dadka dalka lihi waa inay u horaan wixii danta guuda sadaqad bay ugu noqonaysaa wax walba ugu noqonaysaa
anu waxaan soo jeedinayaa waa la nahay soocayo dulmi baa lanagu wadaayo caynkan maalintuu hebel hadla hayana in la hadla maaha maalintuu kani hadlana in la hayo maaha maxaa qurux badan waa in la isla qabto danta ummaddu waxay ku wada wanaagsananaysaa in la isla qabto hadday reernimo u muuqato iminka sida loo hadlayaa waa reernimo waa reer dalbasaya lagu yidhi ciise sheekh maxamed warsame iyagu waxay ku hadleen baa tiri reernimo oo af reernimay ku hadlayeen adigu markaad u jawaabto miyaa af reernimad ku hadlaysaa lagu odhan karin maya waxaan loo odhan karayn haddii aan leeyahay aniga markii xilka layga qaaday suduwa caafimaadka xuseen xasan gabobiya oo ciise ahayn cidna igama maqal maradayduna ma maqal waayo anu waxaan qoonsanahay xilka haddii layga qaado inuu ilaahay iga qaada qalinka ilaahay bay ku dhacdaa laakiin markaa inan meel qabto haddii lagu qayliyo adoo dhalama iminka raabtigay joogeen oo maayar ka ahaayeen adoo iminka intaa legbad mukhtaaro ugu timi amiin baa ku xigay markaa ma qurux badan tahay amiinow in maalin qof markuu yimaado laga hadlo waxa weeyaan wixii dadka iska hor keenaya anugu af wanaagsan baan ku hadlayaa wixii iska hor keenaya qarannimadeenna reernimo baabiinaya in laga saaro maaha in reer dalalnimo farta loogu fiiqa cid waa in toos loo yidhaahdaa hebel baa sidana 3 bilyan baa ka sii jeeda Shucayb uu wasiir ku yahay maanta 3 bilyan ninka maanta bixinaya hadduu kaambeyn gabil la soo galo uu de qofka hadduu dabaalay dabaasho wuxuu la tagaa badweynta siil carreysta inuu la yimaado maaha anu markaa waxaan soo jeedinayaa in aynu qarannimadeenna wada ilaalino qof kasta oo wax cunay inkastoo ay huursato dawladdu qof kasta oo cunay huursataa haddana inagu odhad ma noqonayno haddii odhad la keenana waa raalli laga yahay kii hore iyo kan dambe gid waa la wada baadhi la meesha qurun halkuu galo laga soo wada saari laakiin waxaan leeyahay sacaadatul wasiir waad ka dalacday maqaaxidii Sakaaro waad ka dalacday bunkii yaraalka xasan jaamicin ku wada cabaynay waxaan ku leeyahay wuxuu soo kordhiyaa ku soo noqon gobolka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaanid xasan oo saaxiibkayga igu dhow ahaa isaga dardaaran yar waxaan uga jeedinayaa xildhibaannimada gudoobaayarnimada cidda keliyan ula hollan lahaa maanta haddii la weydiiyey iid buu ahaa berrina waad isku soo taagaysaa iidow waxaad berri markaad isku soo taagayso keenaya inay kugu noqoto nidqad yar oo siyaasadeed ama reernimo afka kaaga sii dhacdo ama waxyaaba kale kaaga sii dhacaan waxay noqonaysaa carqalad ku hor joogsata berri xildhibaannimadaadii ayay noqonaysaa anoo aad kuula jecel inaad noqoto anoo aad kuula jecel inaad siyaasi korkaca noqoto oo dhallinyara waxaan ku odhan lahaa reeraha iyo waxyaabaha qabyaaladda iyo waxyaabaha ka dheerow kursigu aduu ku sugaya aduu kuu taagan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaah